Soo dhawaada asxaabta. Soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. Soo dhawaada. Soo dhawaada insha Allah. Taqwa oo ku yaala magaalada Kansas City. Soo dhawaada insha Allah asxaabta qaaliga ah. Aan salaamaya dhamaantiin. Okay, waa idin bilaabaya waqti badan ma jiro. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنت مقعي موقعي تقارنبا الشعب الصوماليات ولكن عبد الحكيم عثمان نور وكما قدر الشيخ الصومالي AK حرف الشيخة مقالة مينيابوليس مينيسوتا. لما أنتين وحنقول السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبشي رمضان وحنو قال لي طبنكي يقدم بيا بشا طبنكاس الله بدينا إنه كجرو ليلة القدر حينو بلعبنا فافان جعوة هي عاوة إنه بلعبنا سا مركا لما أنتين وحان إلهي سبحانه وتعالى إذن كبر إياه إنه إلهي لما أنتين إنه وضوافة ليلة القدر بشا سن خير كده النصير. انتي والد دمت إلهي ونحرسته، انتي حنوصن إلهي عافيه، انت النوم إلهي وحفظه. لما انتي إنه قفك السمرات كيس أوليها أو معصيلهين وإلهي وسهله. وحاربا إنا لدين لو ذاقو قصة آدي آدو حنون بدن مصيبة مروة آدوينة وهبين هوراء كدعضي كانساس ووضن كمرايكنك. sida aad baraha bulshada ku wada aragteen waxa habeen hore lagu dilay Kansas laba wiil oo walaalo ah oo midna 15 sano jiro midna 14 jir yahay oo xaafid al-Qur'aan ah. xalaween soo dhaafnay rood habeen hore xalaween soo dhaafnay ka yara dhacsanta oo maleena yaa xoogaa daawadii ku badina حلوة نصور عفنا هبين وراء هاد حلوة نجي عادي ولا هذا لبا ويل ولا ومن الشري تمنجري هاي منا وأفري تمنجري هاي وحافظ القرآن مركي صوت تجين تراويح دي أيا وحا كوجبناي دربية جورية أو سوغي ولا الكود كوي أو إسكوهايو يهي لنك كلانه أي الماضي رما يهين ولا باتنجرح لبدي ويل بقى وحقو قبل عباي حبضة ويل كي وينا صاد عركتين فنانة دا قدود كاقشانا سو شيخ وشيغي وحاول السعودي ويل ير أو ويل الشاس يران كودي إيا لبدا ويل كاسير إساء التي اسم مسكحين ويل يرحانو صنع يوها كبعد حبضي وحو قبل عباي ويل كي وينا وحاو كغدمي مدحة هير وحي قاعدة مسكحديسي دربي إيا لولك أي كل دكتو سيدي شيخ وشيغي دقدر جوري سنية كبعد وحاو حبضي هدنا لدعي ويل كي يرى كي ويرى واو عرري وحاو الدبعين ودلو
eedadood oo soo korisay saddexdan wiil iyadiina ilaahay waa ka badbaadiyey wiilka dalka geystay waxa uu ahaa wiil 20 jir ah wiilashana saan idiin sheegay dhinacna isku hooyay ka yihiin oo waa walaalo dhinacna waxay ka yihiin isku hooyo dhinacna waxay ka yihiin ilmaadeeruma maxaa haddaba dilkaasi sababay in wiilkaas yari uu faamiligoodii xasuuqo isagana markii dambe ay ciidamada boolisku dileen arrintani maxay ka dhalatay horta Soomaaliya arrintani waa arrin aad iyo aad u xanuun badan waa qiso murugo ah waa qiso loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed khaladaadkooda ay ku saxaan casharna ay noo noqoto labadaas wiil ee xaafid quraanka ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala salaadii soo tujiyay Allah subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa horta inuu jannadii firdawso uu ka waraabiyo qisadan waxay ka dhalatay wiilkan wax dilaya waxa uu la dhashay 2 gabdhood oo hooyadiis iyo aabihiis dhaleen ka bacdi waxaa dhintay aabahood markuu dhintay waxaa la isku afkartay in sidii dhaqankeena iyo caadadeenaba ay ahayd la yiraahdo gabadhii hala dumaalo si caruurtu ayna u dayacmin oo wiilka walaalkii ha dumaalo waxa la keenay walaalkii yar waa uu dumaalay waxay u dhashay 3 caruur ah labada wiil ee dhiman doona iyo wiil ka yar ee fakan doona oo isaga laftiisa xanuun maskaxiyana uu ku dhacay oo dhibaatada uu aabihii geystay ay ka mid ahayd in sheegi doona reerkii waa soo haajireen waa soo dhoofeen waxay yimaadeen wadanka Mareykanka magaalada Kansas bay yimaadeen Kansas markay yimaadeen ninkii wiilkan wax dili doona ee adoonka adeerka uu ahaa wiilashan kalena dhalay ayaa waxa uu faraxumeeyay sida newska kullu aad ku wada arki kartaan waxa uu faraxumeeyay gabar yar oo ka mid ah gabdhihii walaalkii dhalay ee adoonta ahayd waa uu uuray markuu uureeyay arrintii waa baxday farahay ka baxday maamadii dhiman doontay ee uu dili doonay ilaahay u naxariisto way carabtay masaajidkii iyo culimadii ayay u tagtay waxay u tagtay masaajidkii iyo culimadii ayay u tagtay masaajidkii iyo culimadii markay u tagtay arrintii gabadhii ilmihii sida la sheegay mar waxa la leeyahay waa laga soo xaaqay marna way wadataa برايق أبا فيسبوك أنا إسكاله دادن إسكايا أرنتي مساجد كي تكتي مركي مساجد كي تكتي علماء دي بأوبر لكتي أرنتي مركا بوليسكا لما جارسينين وأكو شيء دونا حسن ويرر قبيل كذا دو تعشى لك أنا كو شيء بيا بدن عمر كان كو شيء أرنتي مساجد كي جيسي مساجد كي مركي جيسي علماء دي أيو جيسي نينكي علماء دي نحوك ما قبلني أرنتي أيو كحناقة قرقي أيو قصوى النقضي
markuu gurigii ku soo noqday gurigii waxaa jooga wiil yar oo ugu labadan la dili doono ka yar yaraankoodii ah islaantii ayuu cunaha ku dhagay oo uu dilay wuu ceejiyey arrinta uu ka xanaaqay waxay ahayd sababta ay islaantu marxumadda dhimatay community-ga ugu sheegtay yuu ka xanaaqay gurigii buu yimi community oo dhan baa ogaaday Somali community umaysan bandhigin kufsiga ninkaasi geystay maca maamadii dhimatay maca dadkii ehelkiisa ahaa walaaladii ahaa ee joogay umaysan bandhigin ciidankii dawladda maysan wargelin gabadha yar markaa da'deedu waxay ahayd 14 jir uu adeerka u yahay agoontana ahay hooyadeedna uu qabay arrintii farahii bay ka baxday magaaladii oo dhan baa ogaatay magaaladii oo dhan markay ogaatay gurigii buu ku soo noqdeen gurigii waxaa jooga wiilkii yaraa islaantii iyo isagii wiilkii yar waa yaraankii bahdan labada wiil ay dhiman doona islaantii ayuu ceejiyey waa ay dhimatay markay dhimatay markuu dilayo islaanta waxaa arkaya wiilka yar oo da'diisu 12 sano tahay ayaa arkayay wiilkii yaraa maskaxiyan waxba u dhinmay because wuxuu arkayay hooyadiis oo lagu hor dilay kabacdi ninkii booliiskiiba wacay waxa uu yiri xaaskaygii way isceejisay Soomaalida Mareykanka joogta oo waqtigiin 2019kii mise 8kii ayay arrintaani dhacday wuxuu yiri xaaskaygii way isceejisay markuu yiri way isceejisay lama xidhin wiilkii yaraabaa la waraystay isagii banaanka loo sii daayay lama taabanin baaritaankii baa soo dhamaaday farihii baa la helay wiilkii yaraabaa markhaati furay wiilkii yaraa uu waashay maskaxiyan waxba u dhimay wuxuuna ka waashay gabadhu marka khayr waxay tiri gabadhu 12 sano jirtay markii uu reynayay okay wiilkii yaraa uu markhaati furay ninkii waa la qabtay waxaa ku cadaaday dilkii inuu dilay xaaskiisii markuu xaaskiisii uu dilay ee dilkii uu ku cadaaday waa la qabtay waa la xiray ninkaa xojiyay waa la xiray dhageysta barnaamijka su'aalaha iga daayay waa la xiray ninkii markii la xiray Soomaalideena haddaynu nahay waxaynu fiirinaa marxaladda markaas taagan ma eegno waxa ka dhalan doona mar walba waxaynu nahay dad taageero qofka dulmiga geysta maxaa dhici doona markii la xiray maxaa dhaqan u ah Soomaalida maxay ku sameeyaan sharciyada wadamada ay joogaan waxay ku sameeyaan Soomaalidu qof ayaa dil geysanaya qof ayaa dhac geysanaya qof ayaa kufsi geysanaya waxa lagu soo deynayaa damiin wadanku wuxuu leeyahay nidaam iyo sharci damiinka waa la ogol yahay damiin baa lagu soo deynayaa damiinka markii lagu soo daayo qofkii wuxuu ogaanayaa in dambigu ku cad yahay lacag baa loo ururinayaa xadka laga talaabinaya maxaa dhacay markii ninkii markii la xiray waa la soo daayay beel baa lagu soo daayay Soomaaliya hadalladeeda si fiican u dhageysta beel baa lagu soo daayay walamadii magaalada joogtaan wax ka qabanin qabiilkiisii magaalada joogaba wax ka qabanin ehelkii Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed joogaba wax ka qabanin beel baa lagu soo daayay beel markii lagu soo daayay wuxuu ogaaday in dambigii uu ku cad yahay sidii markaa dhaqanka Soomaalidu uu ahaa wadamadan ay joogaan ay u badan tahay ay sameeyaanba waxa uu ka gudbay waa la dhoofiyay because waxa ku cadaanaya dambigii marka dambigu ku cadaadana qofkii waa la xukumayaa jeel weyn baa loo diraya wuxuu ka faa'iideystay fursadii qabiilkiisa iyo tolkiis ay ugu soo saareen banaanka ee lagu soo damiintay culimadii magaalada joogtay ayna ka hadleen waa la soo daayay kabacdi markii la soo daayay xadku ka talaabay wuuna fakaday markuu fakaday horta markuu dilka geystay waa idin soo sheeka dhaafay caruurihii
labadii gabdhood gabadhi uureeyey iyo gabadhii kaleba gaala qaadatay wiilkaanina sidoo kale dad baa gacanta ku dhigay gaalo inay yihiin iyo Soomaali inay yihiin wali ma kala sixi karo isaguna suuqu gala saddexdii wiil ee dhiman doonay labadii wiil ee dhiman doonay iyo wiilkii yaraana ee dadooda hadda yaran ku dhufatay ee waalatay naxdintii ayaa gacanta ku qabatay oo soo tarbiyadaysay xaafid quraanna saasi ku noqday ninkii markuu laga soo daayay xabsigii damiin lagu soo daayay xadkii markuu ka gudbay labadii gabdhood ee mid uureeyey agoonta ahaa iyo rajada tii uu uureeyey waxay noqotay karaakeer dadka daroogada aadka u isticmaala waxa ay gashay suuqa gaaladina way ka soo carartay raye gabadhii kalena faamiliyadii gaalada ahaa bay sidii u raacday wiilkan wax dili doona uu isku buuqay muusan helin cirda yeesha aad baan xalay uga xanaaqay hadalka imaamka masaajidka ee uu wareysanayay wariya deeq darajo yacni hadalka wadaadkaas umaan bogin aad baan uga xumaaday Soomaalidu runtay dhinac marmaraa qofka bini'aadanka waa inaad dareento xanuunka soo gaaray iyo waxa sabab waa waxa wadaadku waxa uu yiri wiilku gaal buu ahaa miya something like that wuxuu yiri culimadu been bay sheegeen qofkani qof xanuunsan buu ahaa wiilkii wuxuu cuqdad ka qaaday dhammaan muslimkii iyo dhammaan Soomaalidii ayuu cuqdad ka qaaday wuu isku buuqay wadaadka xalay la wareysanayay يعني nin dhaqan gaalaad ma ahayn isnaad wiilkan yiri ma ahayn gaal mana nabcayn muslim laakiin waxa ku dhacay damage adeerkiis aabihii la dhashay ayaa isagoo agoona walaashii faraxumeeyo uureeyay isagoo agoona hooyadii dilay oo caajiyay maxaa dareemi lahayd markaa say yani cunuga noloshan muusan helin culimo caawis Soomaaliyeed muusan helin muslim caawi muusan helin community caawi muusan helin wala dhaylsay faraha laga qaado weelkii xanuunkii baa ku sii batay wuu muraarad dilaacay marba wax buu soo gocanay waxa uu go'aan ku gaaray qorib uu soo qaatay wuxuu go'aan ku gaaray inuu dilo walaaladiis dilo eedadiis isaguna ama isdila ama boolis dilaa halkaas aynu idin yara hakado ninkii waa cararay waxa uu ka degay gaalkacayo qabiil hadaa doonaysaan nin Umar Maxamuud oo reer Khalaf ayuu ahaa maamaduna waxay ahayd gabadh Cismaan Maxamuud ilaahay u naxariis ninkii waxa la yiri ma isaga isdilay mise mar waxa la leeyahay waa nool yahay oo ay qarinayaan mar waxa la leeyahay wuu dhintay oo isaga isdilay marna waxa la leeyahay waa la dilay saddexda xaaladood ayuu ninkii u dhaxay caruurtii iyo familygii saddexdan labadan dhiman doona iyo wiilkan yar waxa gacanta ku qabatay eedado bahadii kale ee agoonta iyo rajada ahaydna ee gabadha uureeyna waa taa wadada midigashay midigaalada raacday wiilkii kalena waa kan xanuunsaday culimada xalay say u hadlayeen masaajidka qisadan way ogaayeen qisadan newsyada Kansas oo dhan baa qoray waa kan ninkii oo la xiray oo lagu soo eedeeyay arinta oo la qorayo waan idin tusay sawirkiisa waan waa kaasin kaar qabihi waa ka yani umaysan qabanin dadkii Soomaaliyeed ehel iyo culimo ahaa caruurtii waxba umaysan qabanin wiilkii waa tan la leeyahay diintu nacagaal ma ahayn damage baa wiilkan yar gaaray maskaxiyan wax laga cudubilayso ilaahay laga tawakkala ayaa gaadhay dhibaata ku dhacday waana lagu fiirsaday Safiya waxay tii wuu ka gaabsaday sheekh xalay wuu ka gaabsaday yes laakiin sheekh waxa uu yiri wiilku diintu aflagaadeynayay wuxuu diintana waa feeg wiilkani wuu xanuunsanaa dhaawac baa gaaray wuxuu go'day adeerkiis oo gabadhii walaashii faraxumeeyay isagoo agoona adeerkiis oo hooyadii dilay wixii baa isku galgalay ciddaa weysana ma helin qoribu soo qaatay masaajidkii markay ka soo baxeen waxa uu ugu gabaday darbiga guriga waxa wada socday saddexdii wiil ee isku bahda ahaa
kii yaraaya maskaxiyan markii hooyadii la dilaya arkayay iyo labadii kale waxa uu ku bilaabay wiilkii weynaa oo uu xabad ku dhameeyey madaxa kaga dhameeyey sida uu sheekhu sheegayay okay qofkan iska yaacbo okay sida uu sheekhu sheegayay maskaxdii wiilka weyn waxaa laga guray dhulka iyo darbiga oo ku dhagdhigtay ka bacdi uu soo jeestay waxa uu ku bilaabay haddana kii yaraa ee wiilkaas ku xigay 14 jirka ahaa wiilkii yaraa ee markii hooyadii la dilayana arkayay waa firxada markuu firxaday ee uu cararay ayaa wuxuu damcay inuu gurigii jabiyo eedadoodna uu dilo albaabkii bay ka xiratay wuu iska tegay ciidamadii ammaanku meesha waa soo gaareen meydadkii waa la qaaday arrintii waa isku nabaqday galabnimadii ayuu haddana wuxuu arkay soo noqday iyadii oo la raadinayo weli oo ciidanku ayna gacanta ku qabanin eedadiis oo bannaanka taagan markuu arkay xabaduu ku soo riday way ka carartay ilaahay baan teedii ka dhigin gurigii bay gashay booliiskii baa la wacay sidii booliisku u raadinayeen isaga iyo booliiskii ayaa iska hor yimi isagoo hubaysan ilaahay u naxariista isagana kolley ilmo yaroo xanuunsan oo dhaawac weyni gaadhay ayuu ahaa isagiina booliiskii halkii bay ku dileen waa uu dhintay saddexdaa wiil halkaa bay ku dhinteen ilaahay u naxariisto hooyadoodna wuxuu ku dhintay gacantii aabbahood allah u naxariisto qoyskiina waa baaba'ay waxa sabab u ah kufsiga uu odaygaasi geystay arrintan Soomaalidu waa inay ka waantoobaan qoyskaas dhami haddeer wuxuu u burburay oo u baaba'ay oo masiibada intaas leeg u dhacday waa gacan ku dhiiglihii kufsiga geystay gabadhu adeerka uu ahaa fuulay ee agoonta ahayd xaaskiisii dilay damiin lagu soo daayay qabiil ka dhigeen bound lacag ka dhigeen ka bacdina markay ogaadeen inuu dembigu ku cad yahay uu fakaday oo la fakiyey arrintan ma samaynaa haddaynu Soomaali nahay mise ma samayno yes waynu samaynaa wadamada aynu joogno nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn ayaa ka dhaxeeya nidaamka iyo sharciga kala dambeynta ka dhaxeeya waxa weeyaan in qofka marka la xiro uu xaq u leeyahay in damiin lagu soo daayo damiinkaasi macnaheedu waxa weeye in qofkii bannaanka joogi karo muddada maxkamadiisu socoto maalinta ay dambigu ku cadaadana la xiri karo oo bartaa lagu jaabaynay sidii adalkiisa ninkii George Floyd dilay oo kale Soomaalidu waxa ay sameeyaan dhaqan ah qofkoodii dambiilaha ahaa marka ay beel ku soo daayaan oo ay soo damiintaan waxa ay ogaadaan dambiga qofkan lagu soo eedeeyay ma ku cad yahay yes or not markay ogaadaan dambigan inuu ku cad yahay oo qofkan xabsi uu galayo waxa la sameeyaa qabanqaabo dambiilihii waxa laga talaabiyaa xadka waxa loo guraa lacag kale gabadhii eedadooda ahayd ee wiilasha soo korisay ee quraanka soo bartay iyadana maskaxiyan waxa la yiri waa isku dhaxyaacdo ilaahay iyadana ha caafiyo ummadda Soomaaliyeed waa ummad aad u qariban waa ummad waxa soo socda aan garan mar walba waxa jooga markaas xaaladda ay ku jiraan qiimeeya qofka Soomaaliga ahi maalinta uu 2 shilin helo waxa uu la fac yahay dheregta calooshiisa waxa uuna qiimeeyaa
xaaladdu markaa ku jira kama fakaro waxa soo socon doona ama waxa uu ku dambayn doona ee dambe Soomaalidu marna ma qiimeeyaan waxa markaa taagan ee waxa markaa soo socda ee waxay eegaan waxa markaa taagan mar walbana waxay taageeraan dulimka maanta ma aysan dhacdeen horta inkastay tii Ilaahay tahay oo marna aan qadar dhinac loo dhaafaynin ma aysan dhacdeen in haddii dambiilahaas aan la soo damiinteen lagu fulin lahaa sharcigii inuu gabar yar oo 12 jiro oo walaalkii dhalo agoona uureeyay hooyadeedna oo xaaskiisii haydna uu dilay oo uu mudan lahaa cadaaladda waddanka Mareykanka maanta wiilkan kalena qalbiga ayaa u qaboobi lahaa wiilkan wax geystay markuu masaajidka yimi culimada wuxuu ku yiri diintu waa feeg sidii sheekhu sheegayay Soomaalidu aflagaadeynaya diintu caynaya waxa uu cuqdad ka qaaday diintii islaamka iyo Soomaalidii oo dhan xanuun weyn oo aan maanta dareemi kartaan ayaa wiilkan haayay xanuunkaasina waxa sabab oo dhaliyay qabiilkiisii jaaliyadii Soomaaliyeed culimadii joogtay war dadka Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka jooga sitiisanka waxaynu u qaadanay in wixii waddanka sharcigiisa jabinaya dhibaato kuwa aynu sheegno war dambi ma aha qof dambi galay haddii aad sheegtid oo tira war qofkani dambigan uu gala ilaahayna dambi kaaga qori maayo qof dambiila haddaad sheegtid inuu dambi galay ama waddan gaalaha ka gala ama waddan muslimiinta ka gala Soomaalidu waxay aaminsan yihiin qofkan Soomaaliga ee dambigan galay haddaad gaaladan u sheegtid in ilaahay kuu caroonayo oo aad tahay jaajuus gaaladii u jaajuusay war ilaahay baan idinku dhaashay bal ii sheega suuradda iyo xadiiska dhahaya bal ninkaanoo kale haddii inta culimadii magaalada joogtay iyo dadkii community-ga jooga ay baxaan oo dowladdii u sheegaan oo yidhaahdaan dowladey arrin baa jirta la qarinayo ninkaani wuxuu faraxumeeyey gabadhii hooyadii Allah u naxariistay gabadha yar 12 sano jirtay masaajidka u sheegtay booliiskii ma la report garayn family-gii waa qarinayaan oo arrintii la baaro oo ninkii la xidho ma dambi ilaahay dambi looga fogaanaya ma aha waxay Soomaalidu aaminsan yihiin gaalkan waxa loo sheegaa inay jaajuusnimo ay tahay muslimku ayna jaajuusin no this waxa weeyaan waa waajib qof kasto islaam saaran kan oo kale in la sheego ayay ahayd la yiraahdo dawladda Kansas loo sheego booliiska la yiraahdo arrintaas jirto waa la idinka qarinayaa maamaduna culimada kaliya u tagtay culimadii markay u tagtay culimada waajibka saarnaa iyo masaajidka waxay ahayd inay yiraahdaan ma qarinano community ahaan dawladda ninkan loo sheego hal xidho maysan oranin culimadii maalin walba haddaba ilaahay baa idinku dhaashay dadka Soomaaliyeed maxaa culimadeenu waay culimadeenu ay u sheegi waayeen markii hooyadii dumar bayba ahay hooyadii waxay istiri ninkaagiina xidhin carruurtaada aabahooda xidhin laakiin ummadda u sheeg dawladdii uma sheegin waay culimadii ay u tagtay ay intay dhiiradaan ay dawladda u gudbin waayeen oran waayeen kiiskan loo gudbiyo dawladda ninkaani gabar yar buu reeb garay hal xidho waay ay u qoriyeen khaladka culimada masaajidka ay u tagtay maamadii dhimatay arintani waxay soo jiitamasay ilaa 2008 mise 2009 ilaa ay hadeer maalintii uu kufsiga geystay hooyadu booliis may wicin Allahu naxariisto wax ay tagtay masaajidka reer Kansas oo dhan waa ogyihiin masaajidkii markii ay tagtay ay u bandhigtay ee ay tiri culimooy horta ilaahay uu naxariisto hooyada number 1 waxay ahayd inay 911 wacdo oo ay xidho ninka laakiin waxa ay ka doorbiday inay masaajidkii tagto culimadiina u tagto culimadii markay u tagtay culimadu waxay ahayd oo waajibka diiniyan iyo sharciyan saarnaa u ahaa markii ay dhageysteen hadalkii maamada inay yiraahdaan dhageyso call the police iyaguna ay wacaan sababtoo ah gabar yar ayuu faraxumeeyay oo agoon ah oo walaalkii dhalay oo u adeer u yahay maysan samaynin culimadii
way aamuseen xaal mastuur iyo Soomaali wax xaal mastuur la yiraahdo anu bixiyay xaar mastuur baan u bixiyay xaal mastuur bay Soomaalidu yiraahdaan laakiin anigu waxaan u bixiyay xaar mastuur ayaa la sameeyay waa la aamusay muxuu ku dhiiraday markaa bal fiiriyo culimada khaladka ay galeen ayaan idin sheegayaa markuu ogaaday inay culimadu u sheegtay markuu ogaaday in arintii ay community gashay oo ka xanaaqay ayuu haddana wuxuu sii geystay crime kale waxa uu dilay oo xoojiyay islaantii culimadu khaladka ugu weyn ay galeen waa culimadii masaajidka magaaladaas ku yaalay culimadeena Soomaaliyeed mid baan maanta u dirayaa dhageysta gobolka aad doontaan wadanka Mareykanka jooga hadday idin timaado haweeney Soomaaliya ay idin timaado oo idin tiraahdo ninkaygii iqabay carruurtay aabahood ama adeerkood ama ay tiraahdo walaalkay ama ay tiraahdo qof kale oo family memberkayga ah ayaa ilmahaygii waxa ku sameeyay culimada Soomaaliyeed meel kasta joogan maanta dhagaha furtaan waa waajib saaran waa in isla markiiba iyagu booliska waxay kuna dhiiriyaan qofka dumarka u timi in ay ciidamada wacdo oo ay dawladda wargeliso ninka sharciga talaabo sharciga laga qaado maaha in la qariyo maaha in la qariyo Soomaalida dhaqankeena waxaynu noqonay in la qariyo wax alla iyo wixii xun oo dhan la qarsado oo dambiilaha la taageero oo dambiilaha inta la soo daayo uu dhoofo hadda maanta reerka ummadan baa meeshaas ku xasuuqantay family dhan baa baaba'ay musiibo waxa dhacday yani musiibo Soomaali ku dhacday tii ugu xumayd qoys Soomaaliyeed ayaa maanta qoyska Soomaaliyeed ku dhacday masiibo maanta tii ugu xumayd ee dad Soomaaliyeed ku dhacda ayaa qoyska Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka jooga maanta ku dhacday culimaduna qayb lixaad leh ayay ka qaateen masiibadaasi waa wadaadadii xalay lahaa wiilka yari muslimku nabca diinta aflagaadeena ilma xanuunsanaya ilma hooyadiis la fuulay hooyadii la dilay oo la ceejiyay aabihii dhintay walaashiis la fuulay yani qisada ay og yihiin sabab afkayga aan u soo marin karaa muslimku aflagaadeeyo kristanbo muslimku nabcaano sabab u soo marin karaa afkayga ummadda Soomaaliyeed culimada dhinaceeda dhaxan baa inaga soo gashay aynu runta isku sheegno culimada Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka jooga dhaliilo badan ayaa jira diinta siday doonaan bay u isticmaalaan xaqiiqo badan baa jirta ninka culimada ee Soomaaliyeed markuu arko qof qabiilkiisa oo xumaan sameynaya wuu kama hadlayo waxaaba laga yaabaa qofkaas inuu qofka ku taageero xumaanta ninka culimadii hadduu arka xitaa qof doorasho iyo wax arado xumaan khalad ku jiro diinta ka hormaanaysa wuxuu leeyahay qof kale in muhiimsan waa taageeraya maalinta dambana waxa weeyaan culimadii khaladkii ay qofka ku taageereen adigu arkay inay qofkooda xumaan ku taageereen ayay maalin dambana cumaamad ku soo qaadanayaan oo ku keenayaan program kale waxbaan caawinaya waxbaan sameynaya arrintan dhacday musiibadan dhacday culimada Soomaaliyeed ee magaalada Kansas jooga qayb weyn ayay ku leeyihiin musiibadan qayb weyn ay ku leeyihiin waa aqligoodu waa nimankaas uu garansiiyay wiilka 20 jirka ee dhibaatada geystay yani wuxuu ahaa diintu nabcaayo muslimku aflagaad nin xanuunsanayo ahaa dhaawac baa gaaray dhaawac waxa gaaray aan bila yani adduunka masiibo aan ku dhicin baa cunugaas yar ku dhacday ummadda Soomaaliyeed aynu saxno khaladkeena gurta xaaji wuxuu ku leeyahay waa ramadaan waa ognahay laakiin
wixii jira in la sheego oo la qariyo Ramadaan kama aha ma diidana Ramadaanta ummadda Soomaaliyeed aynu dayno dhibaatadan weyn dhibaatadan aynu taageerano aynu fakinano qofka dambiilaha marka beel lagu soo daayo arintaas aynu ka taxadarno insha Allah Cabdirasaaq Cali Boos oo soo qabanaya sug Cali Boos soo qabso السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الحكيم والله لي ورسالتها. الحمد لله ايوه. نيو خير الله كاسيو waxaan dhageysanay barnaamijkaaga waan ku raacsanahay inaynu dhaqankeena xun ee Soomaaliga ah ee qofka dambiilaha la qariyo inaan iska day. Mareykan Soomaali waxa qixiyay qof xun oo maaragtay la dariye macnaha la taageerayo oo la qarinayo diinta waxaynu ka jecelnahay sideed ogtahay qabiilka marka reerkaas Allah u naxariisto dhalinyaradaas wiilasha yaryar ee dhintay sabiga ah arrintan hadda aan maqlay oo aad tiri masaajidkii hooyadu u tagtay oo ay kala hadashay wallahi waa arrin ugu cusub laakiin arrintaas haday jirto waxaan boqolkiiba ugu raacsanahay in culimadaasi ay Ilaahay u toobad keenaan noqdaan qariyay dambiga noocaas waqtigii maxaan ku raahdaa Umar waqtigiisii ayaa waxa jiray nin la oran jiray qaadi shureec oo qaadi ah oo Umar bin Khattab khulafada kadib buu ahaa saan u malaynayo ninkaas ayaa waxa la wiil u dhalay iyo dad kale waxay isku qabsadeen hadduu Ilaahay ku roon yahay business iyo ganacsi kadibna wiilkii habnimadii buu aabihii ku yiri abo ninkaasna waxaan u sameeynaa buu de waxaan rabaa buu yiri de inaan hadii aan gar helayana dada lagu imanaya qaadigii de nimanka waxaan rabaa de inaan ku nimo hadii aan nimanka aanan ka gar helayna waxaan rabaa buu yiri de inaan de xeer Soomaali xeer Carbeed inaan iskala jajabsado maarid xeer jajab wax kula dhamaysto aabihii wuxuu ku waayahay isu keenkeena buu yiri yarkii wuxuu u qaatay inuu aabihiis oo hadduu Ilaahay ku roon yahay oo maxaan ku iraahdaa oo de gar siinay markii maxkamadii la yimid qaadi jiray wiilkiisii ayuu gardaradii saaray inay culimada lacagtu wax walba u celi wiilkii ayaa wuxuu yiri abo de way ceebayso aniga qaadi jiray baad de waxa maxkamadda hortaadii iga tiri macnaa sidii nin doobayo ma garanaysaa baadil wax ku raadin marka walaal macaan waxa weeyaan qaadi jiray wuxuu yiri abo wallahi waa ku jeclahay nimanka is haysanna adigan ka jeclahay wiil laakiin adigana waxaan ka jeclahay sharciga islaamka oo maalin baa aan doonta adan caruurtaada iyo adda ka caradaysa dadkaaga yawma yafarru maru wa ummihi wa akhi wa sahibati wa bani saasin ayadu hayban marin qof walba qofka ugu xiga xaaska ka caradaysa cid ku taqaano dhama ka caradaysa bal inay waxun kugu cadeeyaan oo witness kugu noqdaan waa maalintaas la qaawan yahay oo cidina qof eegi karin marka culimadii haday sameeyeen loo sheegay arrintaas aad baan uga xunnahay waana arrinta dhibka sababtoo ah masaajidu waa meesha marka dhibku dhaco qofka bini'aadamka u noqdo oo aado haday hooyadii ay go'aan gaari kari weydii ee ay meesha ku hiratay ayba jirtaba sheekadaas oo ay u sheegtay waxay ahayd inay waaniyaan oo yiraahdaan ninkana maadaama waxa ku kacay dar Ilaahay uga samir ninku noqon maayo diinna kuma qababa dawladana ay u sheegaan bixid ninkaasna waxa lagu yiri baba dhintay Soomaaliya aaday laakiin de hadii halkan lagu xiri lahaa inkastoo wax kasto dhacayba Ilaahay qabo laakiin ciqaab buu mudan lahaa halkan kadibna caruurtana wiilkan yarna cugdad kuma u koreen waxa laga yaabaa dar Ilaahay inay caruurtaas walaalaha ay noolaan lahaayeen
een laakiin wax oo dhan wuxuu yiri ninkii cadaaba inaan galo geeriba ay kaday haddaana dhinteen cadaaba ma galeen hadal noocaas ah jiray marka wax walba oo dhibaato inagu dhaca walaal macaan waxa keena dhaqankeena xun ee Soomaaliga ah ee gabdhaha dulman la yiraahdo la qariyo dhaqan Soomaaliyo waxa jiri jiray gabar baan sanaya sharciyada islaamku waxay qabtaan ninku gabar kufsado in hadduu hore u soo gursadeen dhagax lagu dilo haddii kalena inta la jaldaado la masaafuriyo laga masaafuriyo meesha annaga dhaqankeena Soomaaliga gabadhii ninkii kufsaday bal oranaya ku qaado adaa kufsaday macnaha gaarigaas total loss adu kugu noqday adeerka kabo hadii nin gabar uu kufsa u qooray hadduu ilaahay ku roon yahay de lagu khasbay markaasna arxan u galbis marka dhaqan xun baynu leenahay Soomaalidana dhaqankeena xun ma aynan jeclayn inuu ka hadalno maalin dhaweyta waataad ogeyd nin ruushba Soomaaliya wuxuu ku soo qoray inay wadamada ugu nabadgeliyada xunun la tago Soomaaliya dhanba Afrika ila ku jubatay ninka hala baalkeeyo ma fahmaysaa ninkii bay YouTube ka xireen anu waan la yaabay sababtoo ah Soomaalidu waxa xun oo iyaga xumaantooda ma ogola hadaa qof Soomaaliya waa qof qaawan oo halka hadaa dhar gashatay kula diriraya oo dad kale haduu arko qaawana la diriraya oo kale marka walaalahay horta waxa weeye bil Ramadaan baynu ku jirnaa 10kii dambaynu ku jirnaa waxaan fariyaa caruurta kii wax dilay kii la dilay hooyadood in Ilaahay jannada siiyo sababtoo ah anigu wiilka wax dilay ee xalal la dilay waxaan aaminsanayaa inuu yahay ehlo janno sababtoo ah ilmo yar dhibaato ku dhacday bay weeyaan maskax ahaanna ma u saxnayn waayo Ilaahay qof aan maskax caadi ahayn dadka walwaalan jannada galaan ma ay galaan cadaabta oo diinta waa la noogu sheegay wadaad baa la waraystay baa tiri oo yiri ninku diintu nabca ma dhageysan laakiin wadaadkaas hadduu jira waxa fiicnaan lahayd inuu waxa fiicnaan lahayd inuu arintaas apology ka bixiyo sida ugu dhaqsaha badan ma dhageysanaya aniga lafteeduna si gooniyan uga hadli doonaa wadaadkaas waxa weeye in Ilaahay u toobad keeno qofka bini'aadam empathy wax la yiraahdo baa jira qofka inaad booskiisa kale taajisi oo aad dareenki xaaladda uu ku jiro dareen laakiin ma aha adoo wadaad masaajidka ama amka inaad tira wiilka wuxuu ugu yiri maxaan ku raahdaa diinta waa nabcay wuu dhahayaa diinta waa nabcay because ninkani wuxuu koray iyadoo qoys islaama dartiis uu fikir ku noqday wuxuu cilmiga aqligiisa tusay inay tahay diintana meel dulmiyo hadda ka hor baan waxaan dhageystay in la yiraahdo word summit oo reer Hargeysa ayaa wuxuu ka hadlayay calanka Soomaaliga abuu ka hadlayay de wuxuu yiri calanka Soomaaliga abuu yiri waqooyiga waxa laga qaxay buu yiri anagoo diyaaradana rusheynayaan kadibna de ilaa inta aan soo leekadayna aabahay baa ku dhintay dagaaladii waxaan u qaatay de calankaas calankii la igu dulminay inuu yahay de cuqdad baan u qabaa buu yiri moogta anoo Soomaalinimada diidan marka qofka bini'aadanka ah waxa fiican inuu isticmaalo muraayad kale uu wax ku fiiriyo oo fiirin kaliya qofkan qowlkiisa waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ninba wuxuu yimid asxaabtigu u yimid masaajidkii jooga masaajidkiibu ku kaaj halka ku kaaj qaar baa damcayna la dagaalamay nabiga daayay buu yiri ninkan ha sii cayrinina marka wiilku markuu saa u yimid wiilka waxay inay dhakhtar u ballamayaan inay maxaan ku raada soo dhaweeyay inay cunno siiyaan inay maxaan ku raada garanaysa ay tusaan raxmad diinta islaamku waa diin raxmad waxaan ka halka ka farayaa culimada Soomaaliyeed ama masaajidada hadda gobolka Minnesota waxa ku yaala sidii aan ogahay konton masaajid oo Soomaaliyeed maamulku qaar ay iibsadeen qaar u kireysan masaajidadan loo adeegsanayo kaliya goob lagu cibaadeysto waa in la bedelaa masaajidadu waa inay noqoto meel dadka luqan loogu sameeyo oo qofka dhibaatay u yimaado ula taliyo number 1 masaajidadu waa inay noqotaan meel laga feed gareeyo dadka oo cunno laga siiyo masaajidadu waa inay noqdaan meel dhalinyarada darbiyada jiifta ay intay yimaadaan healing lagu daweeyo si diini ah lagu daweeyo oo lagu bahalkeeyo
ما ها كليو إن يرو مارك تخميس مش كده إذا سكله إنه يوت عبادة تكتو والله إلهي وأنا والله إلهي وأنا ويدين دونا culture كنا مساجد كإن لو قلت كذا ولا قدر يروح لا بدله مساجد كوين النقطة community center وين النقطة سيدا كنيسة oo kale inta community qofkii dhibaataysan inuu u masaajidiyada inuu waa inay noqdaan qofkii kirada hadda maalin dhaweyd hay'adaha dawladda waxay bixinaysaa kirada dadka in laga caawiyo waxaan aaminsanahay inaan masaajideena dadka ku tukada aan samayno santuuqyo oo qofkii jameecada ka tirsan oo kirada waaye in laga daryeelo inaynu dadkeena dhibaato ku daweyno inaynu maxaan ku raa refer ka samayno garanaysa social service waxyaabaha adeegyada bulshada ay u baahan tahay in loo bedelo arrintaas waa mid arrinta labaad waxa weeye culimada aan rabaa inaan halka uga sheego mar horena waa sheeg haddana waa ku celinayaa culture-ka habkan aynu wax u barano oo diinta aynu u barano oo ah in ilmaha lagu dilo diinta waa in la bedelaa ilmaha waxaan waalidiintana waan u sheegay hadda kor haddana waan u sheegayaa ilmahan lagu khasbayo kaliya inay quraan xifdiyaan in laga daayo ilmaha waa in la baraa diinta islaamka macaankeeda diinta islaamka humanitarian waxay ka aaminsan tahay bini'aadanimada waa in la baraa diinta islaamka environmentiga hawada sida dhulka bii'adda loo ilaaliyo waa in la baraa diinta islaamka nadaafadda waa in diinta islaamka la baraa ixtiraamka waalidka seeka ka aaminsan waa in diinta islaamka la baraa hooyada iyo aabaha waalideynka ixsaanka loo falo waa in diinta islaamka la baraa lagu baraa dadkeena lagu ababiyaa diinta islaamka shaqadu sharaftay leedahay waa in lagu baraa waa in diinta islaamka lagu baraa xaaraantu dhibaataday leedahay waxyaabaha socialistka aynu ka hadlayo haddeer masaajidyadeenna iyo culimadeena kama hadlaan way ignore gareeyaan waad ogtahay adiguna waxyaabahaas waa in la baraa dadka waa in ilmaha barbaarin diineed lagu bahalkeeyaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigii la soo saaray jihaadka 13 sano dhan dadkun baa la barayay diinta qofkii baa caqiidada laga dhisayay tawxiidka iyo wax walba inuu barto xaqa iyo baadilka inuu kala garto xaaraanta iyo xalaasha inuu kala garto qofka Soomaaliga xaaraanta nin baa wuxuu yiri dadka muslimiinta oo dhanba wuxuu yiri cunto xalaal iska ilaaliya inuu cunaan laakiin income xalaal iskama ilaaliyo xaaraan iskama ilaaliyaan cunto xaaraan iska ilaaliyaan hilibka doofaar baa ku jiray oranay laakiin lacagtu wato maxay inuu soo balki balga yaaba arrinta kale oo rumaysan walaal ma sheego waxa weeyaan haddii ilmi lagu torjar gareeyo kaliya quraan inuu barto quraankii wax ma taray waad ogtahay caruuraha darbiyada taagan oo dhan wacyigelinadii masaajidiyada quraanka wada xifdiyay waxaan aaminsanahay manhajkeena in dib loo fiiriyo laga bedelo ilaahay baan ugu dhawaanayaa oo dambi ku gali maayo cabdirasaaqo arrin yar baan muddo ayaynu aniga adigu ku noolay gobolka Minnesota waliba Minneapolis aynu wada deganeen hadda Saint-Paul bad u guurtay wadooyinka magaalada adna waad wareegtaa adna waan wareegaa waxaad aragtay gabdho Soomaaliyeed oo xitaa mental ahaan xanuunsanaya sida gabar Soomaaliyeed oo xijaaban oo aragto baco wadata oo maalin walba suuqa marta waad aragtay gabadha Soomaaliya gabadh xijaaban oo baco wadata maalin walba suuqa marta Soomaaliya waan arkay gabadhan oo aad u xijaaban aad xalayda ugu dambeysay iyadoo Chicago soo maraysa ayaan arkay abaad baan la istaagay waan wareystay culimada Soomaaliyeed waad arkay Franklin iyo Chicago Soomaalida taagan oo waliba qaybtood ay yihiin dad mental maskaxiyan oo lacag lagu qaato oo dad lacag sameeya wali ma aanan arkin wadaad jooga gobolka Minnesota oo kamid ah culimada Soomaaliyeed oo intuu baabuur soo qaatay dadkaas wax u qaybinaya ama dadka wacdinaya arrinta dhibaatada weyn ee culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota dhaqaale aad u badan ayay ururiyaan mar walba waa culimaduna waa nuurkeeni aflagaada nagama mudna laakiin dhaliishooda waa inaynu sheegno waa inay waxna ka bedelaan anta marka dadka Soomaaliyeed ee ku dayacan wadooyinka ma kiiskan hadda ka dhacay Kansas bacdama ay hooyadii Soomaaliyeed ay door biday in aanay la xiriirin booliska Ilaahay naxariisto oo u timi masaajidkii waajibkii saarnaa culimadu maysan gudanin maalin walbana khaladaadka noocaas ayaa ka dhaca culimada dhexdooda marka arrintaas waxaan rabaa inaad iyadana si toos ah uga hadasho community
dadka dayacan ee magaalada hal maalin miyaad aragtay qof culima ama raashin u qaybinaya ama xitaa wacdinaya ama dhahaya kaalay masaajid horta cabdixakiino ku horeysa culimada khayr allaha siiyo wadankan markaynu ku nimi masaajidiyo waa ku yaraayeen soomaalidii culimadaas darteed hadda inta kaliya oo diinta uga baxay waxa weeyaan bade masaajidda inuu ku tukan maalmaha ciidda culimadu way dadaalaan laakiin dhaqanka ayaa wax walba ka weyn innaga dhaqankeennii Soomaaliya markii la joogo masaajidyada looma adeegsan jirin arrimaha bulshada waxaa loo adeegsan jiray kaliya meel lagu soo cibaadaysto macbad lagu cibaadaysto laakiin muassasaad ama hay'ad dadka caawin dhaqan culimadu way fiican yihiin way dadaalayaan laakiin wixii kolkeenii wacyi waa inuu isbedelaa wacyiga waqtigii hore wixii waa inuu isbedelaa anigu kaliya fariinta qoraya ana ma aragtay dadka taagan ee dhibaataysan walaalow waalidiin oo dhan bay u taalaa Allah qofka soo muslim waxay u dhalinyar inagoo dhan ninkii dhalada nin uma tago wala gabadha bacda sida taw waan ka naxaa mar walba maalintii ugu dambeysay makhaayad baan ku arkay markaasi waxay ku tiri wax lacag marka aniguna waan ka dambeeyay waxaan ku yiri may lacag abixinay marka ka gogoya cadasa ya codka ka gogoya I don't know hey okay علي باص codka ka gogoya khadka ka xumaaday horta family-gan Soomaaliyeed saddexda wiil iyo hooyadoodba ilaahay ha u naxariisto wiilkii wax dilay iyo labadii uu dilay iyo hooyadood oo aabahood u dilay ilaahay ha u naxariisto run ahaantii Soomaaliya musiibo ayaa meesha ka dhacday laakiin culimada Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka jooga community ahaan waa in waxyaalo badan ay bedelaan haddii ay u timaado hooyo dhib soo gaaray ay ka xishooto inay nayman wacdo ama ninkeeda ha u geysto dhibka ama ninka caruurteeda adeerka waa ee guursada ha u geysto ama walaalkeeda ha u geysto waa inaysan culimadu ayna qarinin oo ay kula taliyaan hooyadii inay booliska ay wacdo oo iyaga laftooda ay wacaan community ahaan اوكي عبد الرزاق بان soo celinayaa marka insha Allah waadi ka go'ay raliga noqo uu ka go'ay walaal arrintii culimada marka wax culimada kaliya u yaal maaha waxaynu u baahannahay dadkeena Soomaaliyeed inaynu culimadeena iyo masaajidyadana taageerno dadka aqoonta lehna in masaajidada ay la shaqeeyaan in masaajidadu ay noqdaan goobo dadka shaqada laga geeyo inay masaajidadu noqdaan goobo waxbarashada lagu barto xitaa maadiga lagu barto dadka waayeelka ay yimaadaan adult school laga dhigo waxaynu u baahannahay in masaajidaduna ay noqdaan meelo kitchen wax laga feed gareeyo oo qofka dhibaataysan laga siiyo cunto oo waliba aan loo kala aabe yeelayn gaal iyo muslim ciduu doona ha yimaado sallallahu alayhi wasallam nabiga waqtigiisii asxaabta wadamo waxaa jirtay intay tagaan ganacsi u tagaan dadka muslimka ah kadibna dadku oran jireen kaalaya bal noo sheega diintiina oo isaa ku gali jireen macnaha mucaamilaadkooda habkay u mucaamilayeen mucaasharaadkooda sidii ula mucaamilayeen dadka sidii wax uga gadanayaan macnaha waxaan rabnaa in diinteena islaamku noqoto diin anagu waxaan nahay maadaama aan dhul gaaladu ku nooshahay aan joogno idhaban inaan ku noolaano inkastoo ku noolaanshaheedu dambi yahay sida culimada noo sheegeen haddana inaan dadaalno weeyo oo caruurteena ay ku koraan baalki arrintan aad ku soo celisay ee taxi ka dhacday Kansas wallahi ma daawan waana arrinta aad iyo aad u naxdin badan haddayba jirto oo hooyadu ay la sheer garaysay culimada oo ay tiri arrintaasaa jirta
waa arrin aad iyo aad u yaab badan waayo culummada waxa weeye inay proactive noqdaan inay dadaalaan oo dhahaan okay dembigaas wuu galay ninkaas waayo haddii qof dhibaato ku wada bulshada aad ka badbaadisid waxa weeye de waa mas aad ka dhex qabatay qoyskaaga kale oo dambiile ah qofkiina axsaan baa u falaysaa xadiis baa jiray walaalkaaga dulman u heeli kan la dulmayana u heeli kan wax dulmaya u heeli marka asxaabtii waa weydiisay waxay yidhaahdeen kan la dulmaya garanaya kan wax dulmaya sida ugu helina wuxuu yidhi xaqa u sheego waxaad ku tirahdaa qabo taas aad baan uga xumahay wallahi waayo hadalkaaga ma maqlin inay culummada sheekadaas ay la wadaagtay laakiin waa arrin kale intoo ma garanaysaa nabarkii iyo xanuunayay baa cusbo okay cabdirasaaqo markii uu geystay kufsiga uu gabadha kufsaday uu gabadha uureeyey wax haba yaraatee la xidhay ma jirin waxaa xarig u imaaday markii uu dilay hooyada ha maya okay markuu xiray de hadalkaagan haddaa i dhegaystay intaanan soo gelin waxaa la gabadhu kufsaday hooyadii baa u tagtay masaajidka u sheegtay hooyada waxay ahayd culummadu inay yidhaahdaan ninkan ha la xiro ninkan waa criminal waa dambiile hadda sawirka dawladdu soo geliyeen magshaadka ahaa waa markuu dilka geystay kabacdi ha waan ogahay waa sheekada berigaa hore waa la socday 2008kii waa socday marka dee dhib baa iskaga dhacday dhibaataduna marba meel bay taagan tahay ilaahay naga badbaadiyo ilaahay ummadda ka badbaadiyo ilaahay waxa macnaha go'aanada khaldan aan qaadana ilaahay go'aanka saxda ah nagu toosiyo laba arrimood un baa arrinta masaajidka aad ka hadashay kamid ah arrin waxa weeye arrinta aad tiri hooyadii baa u tagtay kadibna waxay ku yiraahdeen naaska aamus ama kullay day waxba ma ay ku kordhin waayo inay right away telefoonka qabsadaan oo wacaan yiraahdeen hooyadan baa noo timsaadkeed la furo laakiin ma ay samayn waayo dhaqankeenana waxa weeye dhaqan baynu u leenahay xun inaynu dambiilaha qarino yes qofka badan baalkeen waad ogtahay Minnesota 100 qof oo dad wax ku dilay baa la dhoofiyaa haddii qof Soomaaliya wax dilo oo ay dawladdu qabato 1 milyan iyo bar baa la yiraahdaa boonkiisa ama lacagta laga dhigo damaanada qof cadaan ah hadduu wax dilana 100,000 iyo 200,000 sababtu waxa weeye kii Soomaaliga waa dhigayaan guriyay ka dhigayaan wax walba ka dhigayaan wuu cararaya walaal arrinta kale oo la yaab kale waxa weeye oo aan ka dhageystay iimaanku wuxuu yiri wiilku waa noo yimid wuxuu yiri diinta islaamku waa xuntahay waa ka diinta islaamku nacay diintu ka bax marka wadaadkaas waxaan oran lahaa mar kale raali gelin ha ka bixiyo arrintaas hana u duceeyo isaguna ha duceysto waayo qof dhiban baa u yimid qofku hadduu dhiban yahayna waxa fiican inaad daweysid laakiin inaad si cayrisid inagu dhaqan baynu leenahay xayawaanka waa cayrinaa waa dilnaa waa biyo kulul baa lagu shubaa dhaqan baynu u leenahay Soomaaliya qofka xanuunsan waa la dilaa qofka alkoolista waa xasuusataa xamar sida alkoolista loo leeyahay meel ku dhacaya fiir qofkani waa dhibaataysan yahay drug buu isticmaalay alcoholismku waa xanuun jira lama daryeelo qofka waalan waa la dhibaateeyaa Soomaaliya qofka miskiinka waa la bahdilaa fiir dhaqan xun oo waxaynu leenahay geeto ah oo kala Soomaalida Cabdirasaaq oo dhaqan baa jira hadda gabadh baa soo qortaan u malaynayaa Soomaalidu dhaqan bay leeyihiin dhaqankaasina waa dhaqan aad u xun waxay aaminsan yihiin haddii gabadha ninkeedu uu dhibaato u geysto Cabdirasaaq waad ogtahay Minnesota inuu joognaa dhibab badan baa jira hadduu ninku dhibaato uu gabadha u geysto in gabadha haddii ay booliis socdo ay tahay qof xun waxbaan kaaga sheekaynayaa walaale dumarku waxay ku dhiban yihiin Soomaaliyeed meel walba waxay ku dhiban yihiin qurbaha waxay ku dhiban yihiin Soomaaliya anigu 2018kii Soomaaliyan ka tagay Hargeysan ka tagay ilaa Soomaaliya dhan waan maray meelaan maray ilaa waxaan marin goboladaas Kismaayo dhulka dhan waan fiiriyay waxa balanbalayay oo caruuraha korinayay oo meelaha taagnaa waxay ahayn hooyooyin dhaqankeena ayaa waxa kamid ah in dumarka la buurto ama aan iyada laga soo horjeesto oo la dudme celiyo oo la bahalkeen ninka waa ka gardaran tahay oo la yiraahdo maxaan ku iraahdaa eeg haddaad aragtid dhaqanadeena waxa kamid ah nin haddaa aragtid la yiraahdo naag xaaskiisa
ayuu nin u jajaban xaaskiisu dee sidii nebigii u dhaqmaya sidii nebiga macnaha nebigii iska dhigaya oo kale oo xaaskiisa daryeelaya oo ma garanaysaa caawinaya Soomaalidu dhaqan baynu u leenahay la yiraahdo ninkaasu naagtu waa sirxatay ama naagtu ka baqa arun waa dhaqan aad u xun ninka naagtiisa dulmiya oo dadka horteeda ku yiraahdo naga ama rag baa wada hadlaya waa gees talada wax ka gelin oo aan waxba samayn waxa weeye Soomaalidu waxay u taqaanaa nin bahalkii ah waa culture kan ku leeyahay culture geeto abaynu ka nimid oo ma aragtay qof walba qofku dulmiyo uu moorselo qofka eg Soomaalidu dhaqankeenu leenahay waxa weeye oo kale ninkii saas oo kale haweenaysa ugu jajaban waxa la oranayaa waa sirxatay ama bahalkiisa kii gurigiisa cunada ka kariyo bahalkeeyo caruurihiisa u kala wado dhaqan baaba jirayba Soomaalidu waxa leeyahay waa qorqode war maxaa kijada ku dhex taago dumarkaaba ku oranaya moogti ma fahmaysa marka walaal horta meel weyn wax badan oo social change inaynu bedelno eg waxyaabahana in laga hadlo dadku marka laga hadlo wax bay comfortable ku noqdaan laakiin wixii hadii la qariyo culture ahaan la qariyo wax walba la qariyo eg waa dib maalin dhexdaas waxaan soo qoray qurbaha intee caruur ayaa ku haboon in lagu dhalo maadaama waalidiin badan ay caruurtii ay ku diyacan yihiin qaar waxay yiraahdeen magaal baa noqotay qaar waxay yiraahdeen waxbaa nagu soo qaadatay qaar waxay yiraahdeen wax walba aniga laakiin dib baa ii muuqda waxa ii muuqda nin xun ah oo intuu haweeney caruura ka dhalaan caruurtii la daryeelay hooyo yaro waxaad arkaysaa 30 aan gaarin oo bac gubatay u ekaatay say caruur yaro magarata 7 yar yaro wada dixre u egsaa wada jiidanaysa ninkiina culture-kiisii baa wuxuu qabaa in gabadha ay u tahay inay dhasho caruurta haysa ay tahay sida digaaga oo kale diiqu caruurta waa ka dhalaa oo kuna lama qarxiyo hooyada waxna lama bahalkeeyo meelahaas iska maraa besun iyadoo baa maaragtay qashinka iyo ma garanaysa wax u baarbaarta marka walaal macaane dhaqankeena inaan bedelnaa taa ka muhiimsan dhaqankeena qofka dulman la qarinayo daalinka la qarinayo dhaqankeena la bahalkeynayo ma rabo in wadaadadeenu masaajidyadeennu ay ka akhriyaan khudbada waxyaabo kale Falastiin dib ka dhacay baalkii ka naga salaada khudbada jimcada waxa loogu tala galay ishiishiga jira in laga hadlo socially problemka bulshada ay baalkeynayso ay marayso in laga hadlo basaas ayaa loo macna diinta islaamka iyo khudbada jimcada loo soo dejiyay in laga hadlo in la bahalkii la investigate gareeyo in la yiraahdo maxaa dhibaato inagu haya ilma yaro waxaad arkaysaa darooga dilootay iska dhaaf waalidka dhalay oo dhiban oo wixii la dhiban oo ilmahoodii ka naxay mooyaan kuwa ugu dhow dadka baa waxay oranayaan yaanu noo iman hooyo aan la sheekaystay baa jirta waxay igu tiri ilmahaygu markii uu bilaabay khamri iyo balwadaha walaalkaygii ila dhashay hooyada iyo aabahay dhaleen baa wuxuu ku yiri gurigayga yaanu iga man caruurtayna iga raacin caruurtii buu ku yiri wiilkaas waa fanta yaanu u iman meeshuu walaashii la qaybsan lahaa waayo immunity malaha wax ka difaacaya kuwiisana macnaha dambiga ka celinaya kuwana kuwiisana ka dhigay inay yihiin xariir ma jirto waxaan oo dhan waa faith waa calaf waxaan oo dhan waa nasiib boo qofna meel maraa marka culture-keena dhaqankeena xun ma garanaysaa meel uu ka soo jeedo aan jirin aynu samayno waxaan arkay anoo wadadan hanbinka maraya maalin markaan wadan ku cusbaa baa waxaan arkay gawaaridu dhan istaagtay warba shil baa dhacay baan isiri kadib waxaan arkay shimbirta loo yaqaano Turkiga ee la qaso baa wadada goynaysa gawaaridu dhan waa laga istaagay Soomaaliya waa la jiraa ama ma arkaysa bahalkaaba ka cararaya markuu ku arkaba halkana waa aragtay bahal walba waa ku imanaya waa ku soo istaagaya cidina isma dhibaatayso marka walaal macaane waxa weeyaan ummadeenu inaynu ilaahay dartiis u noqono bal diinta islaamku wax ay farayso bal dhinac diinta aynu haysano bal horta aynu fahanno macaankeeda eeg diintani waxa weeye diinta dunida ugu badan ee la haysto waxa weeye waxay ku faaftay waxa weeyaan ma aha kaliya in seef lagu balkeeyay dadku waxay ku qaadayeen wanaag waxa laga dhisayay maxaan ku raa ilmaha lagu ababinayay wanaag
ilmaheenna waa taqaanaa hooyooyinku ilmo yar baa wuxuu caayayaa qof alla balaaga wuxuu yidhi way u sabcinaysaa wuu ku korayaa inuu baalkeeyo ilmo yar baa wuxuu samaynayaa qof dhibaataynaya warord iska soo celi lama oranayo waxaan u baahannahay inaan korino wiilal ah scientist oo sayniska yaqaana tacliinta yaqaana dhaqaalaha yaqaana diinta yaqaana xurmada yaqaana aabbayaal inaan korino baa loo baahan yahay aabbayaal inaan korino hooyadood xaaskiisa ixtiraamaya waxaa la yidhaahdaa aan maraykanka maqlaa nin xaaskiisa sidii boqortooyo u dhaqa wuxuu ka yimid guri hooyadii baa sidii boqortooyo loo dhaqi jiray eeg nin xaaskiisa bahdilana oday waxaa dhalay faajeer ah oo hooyadii bahdili jiray kadibna intii unbuu soo qaaday marka meesha ciladu ka jirtaa waxa weeye raggeennu inaan step up samayno inaan dhaqankeena bedelno inaan isjilcinno inaan naxariis u samayno inaan haweenkeenna ilaahay inagu barakeeyey ee haweenka ugu awoodda badan dunida inta ilaahay ummad abuuray waddamo badan baan tegey midhaa dhowr iyo 10 waddan ka badan baan tegey weli ma arag dumarka adkaysi badan in aan niraahno waa idiin gafnay nacfiya oo bahalkay waa arrin muhiim inaan dumarka talada guriga iyo tala walbaba gacanta ka gelino oo la wadaagno aan kaa yara dhex galo waddanka Uganda waddanka la yiraahdo ii sheeg muxuu ahaa Rwanda waxaa ka dhacay dagaalkii ugu xumaa ee jahliya ee waddan ka dhaco qabaa'il isku dilaa waad ogtahay waad la socotaa aad iyo aad caasimadda Rwanda Kigali maanta waxa weeyaan caasimadda adduunka ugu nadaafadda badan aad iyo aad nadaafadaasna waxa kilin gareeyay ee sameeya waa haweenka saad ku aragtay saxaafadaha oo dhan aad iyo aad marka يعني ووناقص أي سبيين حتى من لحصة معها واقف تصال أهان عدا ودن كأني وحن قوسان في إريانا يا أد أركتي وحن آمسنا هاي بقول كيف بقول هدي برلمان كاس هاي دمر أبدنا الهايين إنا بتصحي الهايين لكن وحن اللي يجا ترير القابن هلا سير walaale horta arrinta siyaasadda ma aragtay qofka marka ugu horeyso qofka siyaasiga waa inuu dadka iyo dalka jacaylku u qabo waa inuu ka bataa kan kursiga u qabo aniga haddii waxay kursi jacayl iyo inaan wax booba ay tahay waxa ma noqon karo siyaasi fiican ma noqon karo marka ugu horeyso qofku waa in dadka iyo dalka jacayl ka haya ma fahmaysa tan haweenkana baarlamaanka Rwanda boqolkiiba 62 waa haween bay doorteen yes Rwandana waad ogtahay saa sheegtay Soomaalida dagaalkii sokay 1 milyan oo qof iskaga dhiman Rwandana 3 bilood gudahood bay 1 milyan iska dileen yes markaasay meydkii intay harooyinka iyo wabiyada ku daadiyeen baa ilaa Kenya wadadan maxaan ku raada Lake Victoria harooyinka la yiraahdo baa meydkii urkiisa looga ma garat marka horta sideedaba qofka siyaasiga ahi dee wuxuu gurigiisa kala yimid buu meel la yimaadaa haddii gurigiisa lagu baray xishood waxa dhicin waxa hadin dee intii buu la tegayaa laakiin in reerkiisii ku soo doorteen war dhacdhac ma heshaa dadka yaad shaqaalaysiisay bahalkaysay haddii marka horeba waxa weeye wuxuu samaynayo wade waa la iska ogyahay marka laakiin anigu waxaan qabaa haweenkeena waan ku soo macnaha aan mar walba iga go'an in haweenkeena aan tixgelin badan siino hooyadu waa lafdhab waxa la yiri aabbu waa madaxa guriga hooyaduna waa qoorta hadday jirto madax ma taagnaan karo maran waa qoortii waa spinal cordkii ilaa lafdhabartii isku haysay hooyadu waa muhiim anigu waxaan qabaa in aabba iyo hooyo walba fariinteedu gaarto ama bahalkii inay isku jaab noqdaan inay isku tala noqdaan inay ka fakaraan ookiyaalahooda lensiskooda indhahooda wiilka ku jira inay arkaan kaliya siday caruur Soomaaliyeed oo wanaagsan oo muslina u korin lahaayeen war wax kale hana tarinina ilmaha aad korinaysaan waxa ku korisaan ilmo markuu halka marayo la yiraahdo ma sha Allah ilmo adigana ku daryeela dadka kalena daryeela
ما مغلسة إنها كرسي سماء كلية لكن هدي أن هبكي لإنه سكري أنا وأكو علنيا وما رضوا مش غيستيال because دغن كأنه كم جرت إلا شغيسته waayo waxyaabaha dalka Mareykanka ama dunida horumarta laga shaqeysto waa farsamada gacanta Soomaalidu farsamada gacanta waa isku cayda meeqa heesood baa daawatayo nin uu jilayo sabool oo baabaasan makaaniga ilaa 100 heesood baan ku soo diri karaa qofku fiiri macnaha waa message la dirayo oo la leeyahay wiilku hadduu makaanig noqdo sabool buu noqdo inaan gumeed buu noqdo qabiilka sharafta badan ee loo yaqaano gabooyaha oo dadka ugu wanaagsana oo aan rabo halkan inaan fariin uga faro dhowr jeerna fariin aan u faray Soomaali inay badbaadiyaan dadkana badbaadin kara waa iyaga waayo Soomaalidu waxay isu haysato waa faqrigana waxa keentay xirfad la'aan qabiilkaas waa lagu duraa waa lagu caayaa maxaan ku raadhaa farsamada ay yaqaanaan waa waxyaabo gumeystiga iyo nooga yimid bahalkii in qofkii farsamada yaqaanay haddii haddaan ku iraahdo aad tahay nin makaaniga aan ku caayo that means that inaan makaanigiin iyo baabuur ayna samaysan bay samaynaysaa waad ogtahay dhalinyaro waxaa jirta tibanjarayaal ninaan ka jarto wuxuu igu yiri oo saaxiibkay maalin walba qabiilkaygu waa yimaadeen war ma sharci la'aan baa tahay war ma iskaga tagtid meeshan war maxaad war anaga gaar taraa ku gadayno waa kana isaguna lacag ka badan buu sameeyaa kan taraaga sameeya gurigiisu jooga jaahilnimo weeyaan Soomaalidu waxay rabaan qof walba Soomaali ah inuu shaxaad ku noolaado inuu ku noolaado xafiis baan ka shaqeynaya inuu tug noqdo inuu wax boobo inuu arrimaha ku shaqeysto marka walaalle macaane waxyaabo badan baa dhaqankeena rabnaa inaynu iska bedelno hadda qarnigii 12aad baa la joogaa 2021 haddii aanan waxyaabo dialogue badan wada hadal badan la furin oo lagu dhiiran waxyaabaha khaladka ah oo aanan qof walba aanu ka bilaabin aabihii aabbo waa khaldanta ay noqoto laakiin aynu xumaanta gelin daraano bahalkii aynu raano wariyaa sigaarka iska daayo lighterka ii dhib sigaarka cabin haddana lighterka ii dhib oon aniga sii cabayo ma aha bahalkii waxa weeye sideedaba seeing is believing baa la yidhi aragtidu waxbay bahalkaysaa ilmaha yari khaasatan wiilka yari aabihii isbuusaa u fiiriya aabihii habdhaqankiisuu qaataa awrba awrka yar buu bahalkaystaa sababta Soomaaliya maalin walba la isugu haysto xamar waad ogeyd maalintii dhaweyta Muqdisho ilaa hadda waxa siyaasad cakiran baa ka jirta waxa is haysto dhan isma dhaamaan labada group isma dhaamaan waayo labada group wax dadka u turaya ma aha waa groupyo power iyo greed isku haysta shaqada weeyaan kadibna dadka soo gabagabeynaya waa salaada casar baa igu taagan aad iyo aad Ilaahay ku barakeeyo walaalle ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu ducaynayaa khayr inuu dhamaan siiyo waalidiin Soomaaliyeed waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay kuwii caruur ka xanuunsan caruurta u daweeyo aamin kuwii xogaa ka yar kharibantayna in Ilaahay caruurtooda u soo adeeyo aamin asaska Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeedna Ilaahay jannada geeyo aamin in Ilaahay dadaalka ay Soomaali badbaadada ay badbaadiyeen iyo maxaan ku iraahdaa sacrifice-ka culayska ay isi saareen hooyooyinka Soomaaliyeed dal iyo dibadba in Ilaahay uu ka abaalmariyo wuuna ka abaalmarinaya Ilaahay qofna ma garanaysa ajarkiisa wanaagsan ma bahalkii in ragga Soomaaliyeed Ilaahayna soo hadeeyo Ilaahayuna soo hadeeyo in dhalinyaradeenna iyo mustaqbalkeena iyo cawaaqibkeena in Ilaahay jidka saxda ah tuso in Ilaahay nagu badbaadiyo dal iyo dibadba in dhulkii Soomaaliyeed Ilaahay nabad ka dhigo adigana waxaan ku rajaynayaa Cabdiraxmaan Cabdi Xaq Ilaahay inuu khayr ku siiyo kan aad ka hadashayna waa arrin muhiim ah wax kaliya kaaga imaanaya ma jiraan in ajar kaaga yimaado mooyaane wallaan xumaani kaaga imaanayn fiiri qofku haddii uu sheego waxa saxda ah waxa weeye ajar baa uga kordha ajarkuna ma aha waxyaabaha aynu moodayno shimbir haddaad maalin walba bariis u daadisid ajar baa ka helaysaa haddaad waxa saxda ah ka hadashid xitaa qofka ku dhibsada hadeer waxaa laga yaabaa dad badan oo ku dhibsanaya inay life-kan ku jiraan laakiin muddo kadib bay waxay ogaan doonaan inaad waxa ka hadlayso wax sax tahay oo dhacdaa aabaha waxa la yiraahdaa aabuhu hadduu ilmihiisa maalin walba dilo ilmuhu markuu weynaado wuxuu xasuustaa aabihii wanaag inuu u dilay haddaanu de abuse rahayn inkastoo anigu dilid baanba ka soo horjeedaba marka waxaan leeyahay hooyooyinka sharafta leh
idinka hadda awalba gacanta nagu haya na tababara oo ma garanaysaa kalaasyo noo furo baarantiin ah aabbayaasha dhibaataysanoo maaragtay kasoo bixi waayey heerkii aabbanimo looga baana haddii cayranina xoogaa hadalka u qaboojiya waayo raggu waxay aaminsan yihiin kiis iska waal ama maaragtay dad ficilin oo waxaa ku dhacaysa dib marka inaadan iska tuko aniga lafteedu waa tukanayaa marka inshallah inaadan jazakumullah khayr okay thank you so much barnaamijka ayaa la qayb qaatay aad iyo Soomaaliyeed dhammaantood waa salaamay ilaahay subxaanahu wa ta'ala saddexdaas wiil laba walaalkood dilay labada dhintay iyo ka wax dilay iyo hooyadoodba ilaahay jannada firdaws ka waraabiyo jannadii firdaws ilaahay geeyo dhibaato jirta ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa tobankii dambe rabaan reerkaas masiibada ku dhacday ee Soomaaliyeed ee muslimkaana inta hadhay oo gabdhaha yaryar ee dayacmay ay ku jiraan ilaahay iyagana inuu u cawdo ilaahay jidka qabo oo furo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.